waayadan dambe waxaa dalka ku soo badanayay kooxo sheeganaya in ay ka ganacsadaan suuqa kala iibsiga sarrifka lacagaha qalaad foreign exchange trading market, isla markaana lacago badan ka aruuriyey shacabka Soomaaliyeed iyagoo u ballan qaaday faa'iido gaaraysa 70%. muwaadin inta aadan hantidaada cid kale u gacan gelin waxaad u baahan tahay in aad wax ka ogaato khiyaanada loogu magac daray khiyaanada Ponzi scheme oo shucuub badan lagu dhacay. waa khiyaano dadka lagu sirayo iyadoo loo ballan qaadayo maalgashi faa'iido badan oo aan wax khasaare ah lahayn. barnaamijkani wuxuu macaamiisha u soo celinayaa faa'iido bilow ah oo ka timid lacag laga qaaday macaamiil cusub, laakiin macaamiishii hore loogu sheegayo faa'iido u bilaabatay. shirkadaha adeegsada barnaamijkan waxay xoogga saaraan in ay mar kasta helaan macaamiil cusub si macaamiishii ka horraysay u siiyaan lacag loogu sheegayo in ay tahay faa'iido, ilaa inta laga helayo macaamiil cusub oo lacagtooda qayb ka mid ah dabooli karta faa'iidooyinkii loo ballan qaaday macaamiishii hore. barnaamijkani waa soconayaa. shirkadahaasi waxay sameeyaan xayeysiis badan iyo ballanqaadyo kuwii hore ka sii fiican. waxay qortaan dad dhallinyaro ah oo soo xerogeliya macaamiil cusub oo lacag laga qaado. goorta ay joogsato in la helo macaamiil cusub oo maalgashi sameeya, waxaa burbura barnaamijka oo idil. dhammaan dadkii lacagaha laga qaadayna waxay ku baraarugi doonaan in dhac loo geystay. ballanqaad faa'iido qulqulaysa ama joogto ah bil kasta ama dhowrkii biloodba, si kasta oo uu suuqa dhaqaaluhu yahay. maalgelin aanan shati, ruqsad ama sharci ka haysan hay-adaha ku shaqada leh habmaaliyadeedka dalka sida bangiga dhexe. macaamiisha oo aan loo sheegin sida maalgashigani u shaqeeyo ama faa'iidadaas badan uga dhalanayso, ama lagu qanciyo in ay tahay istaraatiijiyad ay adag tahay in la fahmo. macaamiisha oo aan loo oggolayn in ay arkaan dukumiintiyada habka lacagtu u soo xarooto. macaamiisha oo dhib badan kala kulma in ay lacagtooda kala baxaan. jawaabta keliya ee kooxdan ay ku siin karaan marka aad weyddiiso halka faa'iidadani ay ka sameeyaan ayaa ah suuqa sarrifka lacagaha qalaad forex trading. balse ma isweyddiisay waxa uu yahay forex trading? waa ganacsiga suuqa sarrifka lacagaha qalaad ee caalamka. khasaare ayuu leeyahay, taas oo maalin walba joogto uga dhacda suuqyada caalamka horuu maray. faa'iido yar way dhici kartaa in laga helo, laakiin damaanad qaad rasmi ah ma laha. mana jirto cid ballan qaadi karta, waayo daqiiqad walba sarrifka waa isbeddelayaa. mana jirto cid og kor iyo hoos meesha uu aadayo daqiiqadda soo socota. waa khiyaano dadka lagu dhacayo in faa'iido gaaraysa 40%, 50%, 60% ama 70% loo ballanqaado. khiyaanadaas waxaa loo yaqaannaa Ponzi scheme. ma jiraan shirkado sharci ama oggolaansho ka haysta bangiga dhexe oo ka ganacsata forex-ka. waa in aadan hantidaada ku aaminin cid aan sharci u haysan waxa ay ka shaqaynayaan. haddaba muwaadin, Soomaaliya ka ganacsiga forex-ka waa lagu been abuurayaa, ee waxa ka socda waa khiyaano iyo boob hanti dadweyne, ma aha forex trading. tani waa khiyaano. inta dadka lacag laga aruuriya ayaa qayb lacagta ka mid ah la siinayaa macaamiishii hore, looguna sheegayaa in ay tahay faa'iido ka dhalatay ganacsiga forex-ka. ma isweyddiisay haddii faa'iido intaas la eg la heli karo, maxay kooxahan intay dayn ku soo qaataan lacago oo marka ay faa'iidadaas badan ka helaan daynkii isaga bixin waayeen, faa'iidadana keligood u qaadan waayeen oo ay ugu baahdeen in ay adiga lacag kaa qaadaan? waa khiyaano. ma isweyddiisay haddii ay run ahaan lahayd, dhallinyarada shaqooyin ayaa degdeg loogu qaadan lahaa iyo mushaarooyin gaaraya malaayiin dollar si ay suuqyada caalamka ee lacagta badani taallo faa'iidooyinkan oo kale uga sameeyaan. waa khiyaano. ma isweyddiisay sababta shirkadaha waaweyn ee malaayiinta dollar haysta suuqani u geli waayeen? maxaa yeelay waxay og yihiin in aysan jirin ganacsi faa'iidadaas laga helo ee ay tahay khiyaano. digniin. bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga digayaa in ay ku dhacaan khiyaanadan oo shucuub kale horay loogu soo xaalufiyey.